digniino laga soo saaray cabsi laga qabo in ay fatahaada ka dhacaan magaalooyin ay ka mid tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Soomaaliya iyo Turkiga oo diiradda saaraya fulinta qodobadii ay ka mid ahaayeen heshiiska difaaca. Villa Soomaaliya oo war ka soo saartay xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo daahfuray gargaarka degdega ah ee dadweynaha. Dibaddana subaxnimadan waxa aad ku maqli doontaan Kenya oo lagu eedeeyay in ay dishay markaasi booliska Kenya oo lagu eedeeyay in ay dileen in ka badan 100 shacab ah. soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta. Aynu ku bilownay shacabka ku dhaqan magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa looga digay fatahaada laga cabsi qabo inay ku soo wajahan yihiin. Warbixinta warkani waxaa soo koobaya wariyahayaga Mustafa Cali Cadow. Hay'adda qaxootiga barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed ayaa digniin ka soo saartay saameynta iyo dhibaatooyinka dhalan kara roobab aad u xooggan oo la filayo in 8 maalmood ee soo socota ay ka daan magaalooyinka beledweyne, Bu'aale, Garbaharre iyo Baydhabo. Si gaar ah waxay hay'addu ay digniin ay ugu diraysaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool degmooyinka iyo deegaano ku xusan warqadan, kuwaasoo lagu wargeliyay inay ka feejignaadaan waxyeelada roobka. Dadkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in digniintani ay yihiin dadka ugu nugul uguna saameynta xooggan biyo-baxooyinka iyo fatahaadaha ka dhaca dalka. Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 8 maalin ee soo socota roobab xooggan ayaa la filayaa inay ka daan beledweyne iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa aad u sarreysa suurtagalnimada biyo-baxo ka dhacda magaalada beledweyne, gaar ahaan hareeraha webiga Shabeelle. Hay'addu waxay sheegtay in la qiyaasayo biyaha roobka aad u xooggan inay sare u kacaan biyaha webiga, taasoo ka dhalan karto fatahaad sababi kara barakac bulsho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo xooggan. Sidaas awgeedna dadka degan magaalada beledweyne waa inay muujiyaan taxaddar aad u xooggan, ayaana lagu yiri qoraalka. 2. Magaalada Bu'aale 8 maalmood ee soo socota roobab xooggan ayaa la filayaa inay ka daan magaalada Bu'aale iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa aad u sarreysa suurtagalnimada in ay biyo-baxyo ka dhacdo. Sidaas awgeedna waa inay dadyowga deegaanadaasi aad u taxadaraan, ayaana lagu yiri qoraalka. Magaalada Garbaharre si la mid ah magaalooyinka kale waxaa aad markaasi loo saadaalinayaa in 8 maalmood ee soo socota roobab xooggan ay ka daan Garbaharre iyo deegaanada ku xeeran. Waxaana digniinta loo diray dadka deegaanadaasi oo laga dalbaday inay taxaddar ay muujiyaan. 4. Magaalada Baydhabo 8 maalmood ee soo socota roobab xooggan ayaa la filayaa inay ka daan Baydhabo iyo deegaanada ku xeeran. Waxaana aad u sarreysa suurtagalnimada biyo-baxa ka dhacdo. Sidaas awgeedna waa in dadyowga deegaanadaasi aad u taxadaraan, ayaana lagu yiri qoraalka hay'adda qaxootiga barakacayaasha adduunka. aad buu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. Markana Villa Soomaaliya ayaa warmurtiyeed ka soo saartay xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala dhexeeya dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal uu kaga dalbanayo isla markaana kaga hadlayo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Waxaana uu farta ku fiiqay maamulka Puntland isaga oo sheegay in tan iyo markii uu xafiiska yimi uu ku howlanaa sida ay wada shaqayn u yeelan lahaayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse aysan weli suurtagelin. Isaga oo markaasi ballan qaaday in tallaabo degdeg ah iyo dadaalo dheeraad ah ay ku bixin doonaan dhamaystirka madmadowga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan maamulka Puntland. Madaxweynaha ayaa dowlad goboleedyada uga digay in la siyaasadeeyo arrimaha masiiriga ah ee dalka sida midnimada wadajirka dalka, madax bannaanida gobonimada siyaasadeed ee dalka, amniga iyo sidoo kale badqabka muwaadiniinta. Qoraalka Villada ayaa sida tani u qornaa: dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed ee aan hogaamiyo waxa ay ugu horreyntiiba mudnaan gaar ah siisay
xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyada oo saldhig uga dhigaysa wada shaqeynta iyo sidoo kale mabaadi'da dastuuriga ah ee nahagaya wada shaqeynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si loo dardargeliyo fulinta ajandayaasha qoran oo ay ugu horeeyaan isla markaana adkeynta amniga dalka dhamaystirka dastuurka dalka iyo sidoo kale kaasi oo dabranaa muddo ka badan 10 sanadood xoojinta federaaleynta dalka iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha nasiib wanaag muddadii koobneed ee aan talada dalka hayay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay hirgelisay xaqiijisay inta badan anjadayaashii muddada inta waa markaasi inagu dadbanaa isla markaana annaga oo ka guula gaarnay la dagaalanka khawaarijta aan deegaano baaxad ka saarnay qaadista cunaqabataynta hubka kaasi oo in ka badan muddo 30 sano ah Soomaaliya saarnaa deyn cafinta kaasi oo inaga hor istaagay maalgashiga caalamiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay horumar ka samaysay dib u eegista dastuurka iyo dhamaystirka iyada oo samaysay wada tashiyo saamilayda siyaasadda si gaar ah tala ururinta dadweynaha taasi oo si toos ah iyo si dadbanba aynu u sameynay walina waxa ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhiirigelinaysaa wada xaajoodyada wada tashiyada lagu dhamaystirayo dastuurka dalka si shacabka Soomaaliyeed ay u gaaraan himilooyinkooda ay hiigsanayaan ee helitaanka dowlad hagaagsan oo dimuqraadiyad ah kana shaqeysa baraaraha muwaadiniinta Soomaaliga ah waxaan si gaar ah hoos uga xariiqayaa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dadaalo fara badan ay ku bixinayso hagaajinta xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhaxeeya dhammaan dowlad goboleedyada si gaar ah dowladda Puntland si ay u noqoto xiriir sharci ah oo ku saleysan danta dalka iyo dadka walina waxa inaga go'an dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si wadista dadaalada iyo dadaal kasta oo ay ku hagaajinayso xiriirka dowladda Puntland si dalka Soomaaliya u hantaan iyo dadka Soomaaliyeedba ay u hantaan dowlad Soomaaliyeed oo xaqiijin karta himilooyinka dowladnimada haddaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ka go'an sidii horeba in aysan marnaba siyaasadeynin waajibaadka ka saaran wada shaqeynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo heer gobolba si gaar ah arrimaha ku saabsan dhaqaalaha horumarinta iyo la tacaalida arrimaha bini'aadantinimada iyadoo adkeynaysa waajibaadka iyo sidoo kale xuquuqda ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ee dastuuriga ah ugu dambeyntii annaga oo ka duulayna isla markaana gudanayna xilkeena inaga saaran ee dastuuriga ah ilaalinta midnimada wadajirka dalka waxa aan xusuusinaynaa sida ay markaasi u qaba dastuurka dalka iyo dowlad goboleedyada in aysan marnaba siyaasadeynin arrimaha masiiriga ah ee dowladnimada Soomaaliyeed sida midnimada wadajirka dalka madax banaanida gobonnimada siyaasadeed ee dalka amniga dalka iyo sidoo kale badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya markana isla wararka magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xariga ka jaray adeega gargaarka degdega ah ee dadweynaha warbixinta warkaani waxa soo koobay wariyahayaga Cabdiqaani Cusable gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xariga ka jaray xarunta howlgalka degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee gobolka Banaadir xaruntan oo laga hirgeliyay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa noqon doonto mid la socota dhaqdhaqaaqyada xaaladaha caafimaad ee gobolka ka jira iyo ururinta xogaha sida uu sheegay agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladaha hoose ee Xamar Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in xarunta howlgalka degdega ee caafimaadka dadweynaha ay qayb weyn ka qaadan doonto daboolida adeegyada caafimaadka oo ay baahi u qabaan bulshada gobolka Banaadir بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ضمان مسؤول تعالى كدبنا واحد عافمات كقول كبنادر جهد بدن جلسي سيد اللوجة فإذا يسلها ماشى سيدة لو ندد تجلها ما دام يتاجنتها باهدة هذا أو ما ركت إن مدة لا قبي يا إلهي الناس ورجلي إن أنا جلت سي إن أنا أهلنا gurmadka degdega ah xarun caafimaad inaan u helno marka taas maanta oo ah 24 bishii Abriil
2024 inay noo suuro gashay waa maalintu waa 24 bishuna waa bisha afaraad sanadkuna waa 24 marka afar isku aaday ayay ku soo aaday xariiq jarka xarunta marka insha Allah waxay noqon doontaa taariikh lama ilaabaan ah hadii Ilaahay yiraahdo sida inta kadib waxaan howlgelinay waan muddo ka maqnaay saaxada caafimaadka wixii la dhihi jiray faydoor waan ogsoonahay doorka uu ku lahaa maaragtay badqabka ummadda bulshada Soomaaliyeed oo aad iyo aad looga gaabiyay waxa Ilaahay noo suuro geliyay asagana inaan soo kordhino sanadkan 2024 oo shaqo bilaabay January 9keedii inuu shaqo bilaabay arinta faydoorka loo diyaariyay gaadiid loo diyaariyay dad ka shaqeeya arrimaha caafimaadka oo khibrad u leh halkaad weli nagala socotaana waa hiiraan weyn qeybaheeda kala gedisan 9 megahertz beledweyne ee deegaanada ku gadaaman buulo barda jalaalaqsi iyo jawhar halka caalamka live streamka iyo aalada Facebook si toos ah inagala socotaan markana Turkiga iyo Soomaaliya ayaa waxa ay wadaan dhameystirka heshiiskii ay gaareen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa kulan gaar ah xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya kula qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidamada Turkiga ee saarnaa markabka dagaalkaasi oo 2 maalin ka hor ku soo xirtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ajandaha kulankaasi ayaa ahaa qorsheynta iyo qaabeynta lagu dharaandhirinayo hanaanka fulinta qodobo ay ka mid yihiin heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga gaar ahaan arrimaha tababarada iyo taakulaynta ciidamada kulankaasi intiisa badan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ciidamada waxaana ka qayb galay taliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye guutamaade Nuuri Sheekh iyo saraakiil kale kulankaasi waxa ka horeeyay mid ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xubnaha la socday markabkani waxaana uu ka dhacay xindaabka garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada Turkiga ee saarnaa markabkan dagaal oo ay leeyihiin ciidamada difaaca ee dalka Turkiga ayaa waxa ay 2 maalin ka hor ay ku soo xirteen dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka markabkaasi dushiisa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu saxiixayay dhaqangelinta heshiiska iskaashiga difaaca dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxaana madaxdii ka qayb galay ugu sareeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo saraakiisha Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in markabkan difaaca Turkiga oo ku xirtay Muqdisho uu yahay dhacdo taariikhi ah oo xoojinaysa iskaashiga iyo walaaltinimada Soomaaliya iyo Turkiga dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadal jeedintiisii ayuu ku yiri dowladda Soomaaliya waxa ay walaalo la tahay dowladda Turkiga oo heshiiska inaga dhaxeeya waa dal iyo sidoo kale dad aanu naqaano marnaba hiil iyo sidoo kale inoo muujiyay waxaana aan sii wadi doonaa saaxiibtinimada walaaltinimada aynu ku aamini karno iskaashiga muhiimka ah ee difaaca biyaheena iyo badeena qarameed madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya halkaad weli nagala socotaana waa hiraaweyn qeybaha kala gedisan markana dibadda booliska Kenya ayaa loo haystaa dilka in ka badan 100 qof hay-adda xuquuqda insaanka ee Kenya iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah ayaa warbixino ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 118 qof oo dhibanayaal u yihiin dilal sharci darro ah oo ay geysteen booliska Kenya dilalkani ayaa la sheegay in boolisku ay u geysteen sanadkii hore isaga oo waa markaasi iyaga oo cambaariyay waxa ay ugu yeereen isla xisaabtan la'aanta iyo wali ciidamada ammaanka ay ku naaloonayaan iyaga oo falal dambi geystay waxa intaasi ku dareen in tirada ay hoos u dhacday 9% marka loo eego sanadkii 2022 ay tiradu ahayd 120 halka tirada dadkan lagu la'yahay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kala bar ilaa iyo 10 xaaladood isla muddadaasi ku dhawaad kala bar dalka waa markaasi dilalkani ayaa waxay dhaceen intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dambiilayaasha sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda oo ay ka mid yihiin hay-adahan ay ka mid yihiin Human Rights Watch Amnesty International iyo hay-ad kale oo Kenyan ah taasi
oo u dooda xuquuqda insaanka. kooxahani ayaa sheegay in 45 qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka Kenya intii u dhaxaysay bishii March iyo sidoo kale July ee sanadkii hore, kuwaasi oo ka cabanayay qiimaha sare ee nolosha. mudaharadayaasha looga soo horjeeday dowladda madaxweyne William Ruto ayaa waxa ay ka dhaceen rabshado dhacay goosgoos ah, waxaana mudaharadayaasha iyo sidoo kale kooxaha xuquuqul insaanku ay ku eedeeyeen booliska inay isticmaaleen awood xad dhaaf ah. saraakiisha booliska ayaa waxa ay si dhif iyo naadir ah ula dhaqmeen, isla markaana u xirxireen halka ay xabada nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya. afhayeenka booliska qaranka William ayaa waxa uu sheegay jibinta iyo sidoo kale codsiyada wakaaladda wararka AFP in ay arintaasi